assalaamu calaykum. Dadka intooda badani ma oga xaqiiqada awoodahooda aan xuduudda lahayn ee ilaahay u hibeeyey. wakhtigiisa ayaa uu qofku luminayaa, noloshiisa iyo wakhtigiisana waxa uu ku iibinayaa qiimo jaban. sheekadan waxayna tusin doontaa inaan baranno xaqiiqada awoodaha nagu qarsoon ee aan ka jaahilka nahay. 2,000 sano ka hor waxaa kulmay khubaro Shiineys ah oo go'aansaday inay qoraan sanam dahab ka samaysan oo miisaankiisu u dhan yahay 5 tan ama 100,000 kiilogaraam. hadafka dhismihiisa ay ka lahaayeen waxa uu ahaa inuu noqdo hidaha iyo dhaqanka dalka Shiinaha ugu wanaagsan ee taariikhdu ka hadasho, oo dalxiisayaasha iyo cid waliba u soo daawasho tagaan. waanay ka dhabeeyeen dhismaha mashruucaas. markii ay dhammaystireen dhismaha sanamka aadka u weyn ayaa waxaa soo weeraray Shiinaha ciidan lagu magacaabo Barmuud. ciidankaasi oo lagu yaqaanay shar iyo dagaalyahanimo daran, kuwaasoo marka ay meel soo weeraraan shay walba oo ay la kulmeen dumiyo oo guba, oo haba yaraatee wax nool aan ka tegin. raggii dhisay sanamku waxa ay u baqeen in ciidankaasi sanamka arko, waxa aanay go'aansadeen inay sanamka dhoobo mariyaan si aysan u arkin ciidankaasi inuu dahab yahay. ciidankii waa ay soo gaareen tuuladii sanamku yaallay, wax walbana waa ay gubeen. dadkii tuulada joogay oo ay ku jiraan raggii sanamka dhisayna waa ay laayeen. sanamkii waa ay arkeen laakiin danka ma aysan gelin, waayo waxa ay moodayeen inuu sanamkani dhoobo yahay, wayna isaga tegeen. wax wakhtiguu siriixaba oo sannadba sannad u sii gudbo. mar laga joogo 150 sanno kadib ayaa mas-uuliyiintii Shiinaha ee xilligaasi waxa ay go'aansadeen inay soo saaraan sanamka oo la keeno magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha, maadaama uu yahay hidaha iyo dhaqanka uu dalku leeyahay. balse dowladdu marka ay sidaa leedahay ma ogeyn waxa uu sanamku ka samaysan yahay, oo waxay u haysteen dhoobo oo keliyaata. waxa aanay isu keeneen qalabkii iyo gaadiidkii lagu rari lahaa oo dhan. markaasoo jawigu aad u qaboobaa dartii roobab badanina ay da'ayeen ayaa waxaa dhacday in sanamkii meel ka dilaaco. ninkii madaxda u ahaa raggii qaadayay sanamka ayaa amray in dib loo dhigo qaadista sanamka ilaa maalin dambe oo cimiladu hagaagto. sidii ayaanay sameeyeen. sanamkii oo dhulka yaalla ayaa ay ka tegeen. odaygii looga tegay ilaalinta sanamka waxa uu ahaa oday faduul badan oo jecel wax walba inuu ogaado. wuxuuna soo qaatay toosh uu ku iifiyey meeshii uu sanamku ka dilaacay. waxaanu arkay in iftiin tooshka ku soo noqonayo oo wax soo celinayaan. ma rumaysan karin, waayo dhoobadu iftiin ma soo celiso. waxa uu soo qaatay dubbe iyo masaabiir. waxa aanu ku sii weynayey dilaacii, kadibna tooshka ayaa uu ku sii ifiyey. waxaanu arkay iftiinku inuu awood badan ku soo noqonayo. taasi waxa ay kor u qaaday himadii odayga. waa uu sii qoday dilaac. weliba raggii kale ayaa caawimaad ka dalbaday. dhammaantoodna waxa ay bilaabeen inay dhoobada ka fiiqaan sanamka dushiisa. 10 saacadood oo shaqo ah kadib waxaa dhacday arrin la yaab ku noqotay raggii oo dhan. waxay ogaadeen in sanamka intaa leeg uu ka samaysan yahay dahab sooca, kaasoo qiimihiisu uusan qiyaas lahayn, weligoodna aysan arag isagoo kale. waxa ay heleen sanam dahab ka samaysan, dhoobana dusha ka saaran tahay. waxay ogaadeen in qiimaha sanamku uu yahay mid xad dhaaf ah. warkii ayaa ay faafiyeen iyagoo faraxsan. mas-uuliyiintii Shiinaha ayaa arrintii soo farageliyey. sanamkii waa la raray oo Beijing ayaa la geeyey si uu noqdo meel loo soo daawasho tago. sanamkii waa uu yaallaa Shiinaha ilaa maantadan aan joogno. qisaduna dusha ayaa ay kaga qoran tahay. waxa kale oo ku dul qoran xikmad Shiinaysa oo tiraahdaa, dhoobada hoosteeda kinsi baa ku jira. anigii waxaan leeyahay qof kastoo bani aadama waxaa ku jira kinsi ah awood uu alla dhex dhigay. allana waxa uu leeyahay, wa fii anfusikum afalaa tubsiruun. waar miyaydaan eegi ahayn waxa nafihiinna ku dhex jira? haddaba dadka intooda badani ma fiiriyaan, mana oga awoodaha rabbaaniga ee dhexdooda ku jira. maxaa yeelay deegaanka ku hareeraysan ayaa waxaa ka buuxa barnaamijyo hore iyo aaminaado qaldan oo wakhti hore ka samaysantay deegaanka ku xeeran, oo ay ka kow yihiin 2 waalid, kadibna qoyska. waxaa ku sii xiga bulshada, waxaa ku sii xiga madarasada, waxaa ka sii mid ah saaxiibada, waxaa ka mid ah saxaafadda, waxaa ka mid ah qiyamka taariikheed iyo dhaqan ahaaneed. 90% ka mid ah qiyamkeenna waxa aan ka kasbannaa caalamka inagu xeeran, kaasi oo si qaldan inoo borogaraamiya. daraasad ay sameeyeen qaar ka mid a baarayaasha kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda San Francisco waxa ay baarayeen nooca borogaraam ee aadanaha. waxa aanay ogaadeen inteeda badan inay tahay mid qaldan oo lidkeenna ah. waxa aanay ka dhigan tahay inay awooddeenii qarsoonayd aasto oo ay daboosho aaminaad, dareen iyo garasho qaldan. waxa aanay isku mid yihiin sheekadii sanamkii dhoobadu ku daboolnayd ee aan ka soo sheekaynay
kaasoo gudihiisa ay ku jirta qiimo aan xuduud lahayni. Alle waxa uu inaga dalbanayaa inaan abuurkeenna hoos u eegno oo aynaan ku raadoobin borograamyada qaldan ee aan deegaanka ka dhaxalnay, oo aan dareenno qiimaheenna, qaayaheenna iyo awooddeennagu duugan si aan uga baxno mugdiga dib u dhaca, una isticmaalno awooddeenna kuna beddelno nafteenna iyo caalamkaba. Wassalaamu calaykum.